lambarka 20aad ayaa half side galay isagu suudi riin ayaa loo baasay ciyaartooyga maska ayaa kubadda loo soo baaso iminka kubadda cagta ku maamulanaya sharmaaka yaakhi lambarka 20aad ee kooxda ciidanka bilayska uu soo baasay suudi cabdicasiis qucle guuleed alfis riin ayaa loo baasay mar labaad riin ayaa kubadda keenay dilinta 18 kubadda iiblayna sharmaake kubaddaasi hafsid ayay iyaguna galeen ciyaartooyda mar labaad ciidanka bilayska ayaad moodaa in weerar counter attack ku ciyaarayaan qaybtii dambe kooxda maxamed Saleeman kooxda Kirix Restaurant ayaa kubadda wata Kirix Restaurant kooxda midabka orange-ka ku ciyaaraysa daawadayaal hal gool ayaa lagu leeyahay Aila ayaa kubadda soo baasay Maxamed Saleeman shandha ko dhinaca midig oo Kirix Restaurant ayaa kubaddaasi laagay laakiin waxa haysta Maxamed Jufo ayaa kubad furan soo baasay Maxamed Cabdi Jufo waa laga qaatay mar labaad foul ayaa lagu galay ciyaartooyda aan idhaahdee Kirix Restaurant ciyaartooyga Maxamed Jufo oo lambarka 6 ayaa kaarka huruuda la siiyay daawadayaal kaarka huruud ee jaalaha lambarka 6 ee ciidanka bilayska waa maskaxda galabta kubadda u maamulaysa kooxda ciidanka bilayska ayaa kaar huruuda la siiyay waa lambarka 6 ee Maxamed Cabdi Jufo kaar ayaa la siiyay qaybtii dambe ciyaarta oo gabagaba Maxamed Saleeman kubaddaasi waa lagu cunay kubad cajiib ah bad moodaa inuu ciyaartooyga riin uu ka difaacay dhanka ciidanka bilayska ayuu ka tirsan yahay waa lambarka 4 waa ciyaartooy khibrad fiican la isagoo dhaxda weerarka ka ciyaaraya waa controleen kubaddaasi waa la soo galeen nasiib daro waa khaldeen kubaddaasi ciyaartooyga garoonka oo roob ku da'ay galabta awgeed ayaa ciyaartooydu waxay ku dhacayaan dhulka culays badan ayaa ka haysta kubad qaadashada iyadoo cimiladu ay siyar bedeshay daqiiqadii ugu dambeeyay caasimadda Hargeysa waxaana aad moodaa in ciyaartooydu intooda badan garoonka Hargeysa stadium dib u habeyn iyo qalabayn cusub lagu sameeyay ay cabasho badan ka muujinayaan marka uu roobku ku doo riin ayaa kubadda laga qaatay marka ciyaartooyga riin kubadda waa laga qaatay mar labaad gacan tuurasho waxa heshay kooxda markaa Kirix Restaurant xaajiga ayaa kubadda haysta ciyaartooyga lambarka 17aad u xidhan kooxda Kirix Restaurant weerarka ayuu ka ciyaaraya waa ciyaartooyga Khadar Cabdiraxmaan Xaaji lagu magac dheer ciyaartooyga xaajiga lambarka 17aad 77 ayuu xidhan yahay ciyaartooyga xaajiga ee kooxda Kirix Restaurant weerarka ayuu ka ciyaaraya waa strikerka koowaad ciyaartuna ilaa haatan waxay maraysaa gool iyo ebro ciidanka bilayska ay dhaliyeen isagoo uu saxeexay ciyaartooyga lambarka 17aad u xidhan waa ciyaartooyga Suudi oo bedel ciyaarta ku soo galay waxa iga xusuusinaa tartanka toddobaadkii ugu horeeyay ciyaartooyga ugu wanaagsanaa waxa la gudoonsiiyay jaayisad ay bixiyay aan idhaahdee telefishinka caalamiga ah Cable TV mas'uuliyiinta telefishinka caalamiga ah Cable TV ayaa ku deeqay oo iyagu markaasi baahinta live-ka ka tabinaya Hargeysa Stadium kuna deeqa ciyaarahan in si toos ah looga daawado caalamka iyo geeska Afrika iyo geeyiga Soomaalidaba waxaana gudoonsiisay wariye Sagal Baldeeq oo loo soo xil saaray oo loo soo igmaday daawadayaal aan idhaahdee ciyaartooyga Cabdicasiis Qucle oo ciidanka bilayska ka tirsan oo lambarka 7 ayaa la gudoonsiiyay jaayisadii 7-ka ciyaartooyga ugu wanaagsanaa iyadoo maalintii shalay ciyaaraha laga nastay waxaana la isku soo noqday maanta oo axada 29 bisha 7 2018 Hargeysa Stadium waxa isku wajahay kooxda Kirix Restaurant iyo kooxda markaasi ku ciyaaraysa magaca Goodir ee ciidanka bilayska ee heerka koowaad Sharmaake ayaa soo galay dilinta Sharmaake kubaddaasi ma uu dhalin waa uu agmariyay daawadayaal out kubaddu dibadda ayay u baxday waa ciyaartooyga Sharmaaka ilka dahable waa lambarka 9aad ee kooxda Goodir ee ciidanka bilayska Khadiir ayaa kubadda haysta ciyaartooyga Khadiir ee lambarka 7aad waa soo mareen waa soo dhaafeen mar labaad iyagoo isku dhiibanaya kubadda Sharmaaka ayaaba difaacay Sharmaaka yaakhi advantage baa loo sii daayay kubadda ciyaartooyga isagoo dhulka ku dhacay saaxiibka ayaa kubadda haysta waa riina kubadda wuu soo baasay mar labaad Suudi ciyaartooyga Suudi yalla ya Suudi yaay ma uu dhalin daawadayaal kubaddaasi Suudi waa uu khalday ciyaartooyga Suudi Ailo ayaa haysta Cabdiqaadir Ailo waa uu soo baasay ciyaartooyga Mustafa ayaa loo baasay heegan oo lambarka 16aad kubaddeer Khadiir ayaa kubadda raacdaynaya ciyaartooyga Khadiir kubaddaasi waa ay ka baxday gacan tuurasho ayay uga baxday ciyaartooyga Khadiir ee lambarka 7aad ee kooxda Kirix
بدل ayaa dhacaya daawadayaal waqtigii additional time ka aan idhaahdee raali gelin additional time ka ayaa daawadayaal lagu daray waqtigii dheeriga 4 daqiiqo waa kooxda ciidanka bilayska iyo kooxda kirix restaurant heerka saddexaad natiijada ciyaartuna waa gool iyo eber ciidanka bilayska ayaa guusha markaasi rajaynaya inay qaadaan iyagoo hal gool la horumaray qaybtii dambe ee ciyaarta ciyaartooyga lambarka 17aad ee Suudi oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa gool ka dhaliyay halka dhigooda kirix restaurant ayna wax gool dhalin ilaa haatan ciyaarta natiijaduna waa hal iyo eber waa gruubka shanaad ama waa gruubka koowaad ee waa gruubka A ama gruubka koowaad aan idhaahdo daawadayaal gruubka koowaad waxa ku wada jira ciidanka bilayska ciidanka xeebaha ilaalada xeebaha aan idhaahdo kooxda gas engineering Diana Club iyo kirix restaurant natiijada ciyaartuna ilaa haatan waa gool iyo eber waan eegi doonaa daawadayaal waqtiga additional time ka lagu daray waa 4 daqiiqo waqtiga dheeriga 90kii daqiiqo hal gool iyo eber ayay ku dhamaatay laakiin 4 daqiiqo dheeriya ayuu garsoorka afraad ee Cabdi Gurey oo garsooraha afraad inoo qaabilsan saacada iyo substitute-ka uu ku daray ciyaartuna ilaa haatan waa mar socota Aylo kubadeer ciidanka bilayska la soo galay mar labaad kooxdii bilayska Riin ayaa kubada wata advantage baba loo sii daayay kooxdaasi waa ay wataan mar labaad kirix ciyaartooyga xaajiga ayaa kubada raacdaynaya xaajiga ayaa kubada wato la soo galay si xirfad leh ciyaartooyga xaajiga waa uu maray sharmaake waa uu ka xidhay kubadaasi waa ay baxday difaaca ka ciyaaraya dhinaca bidix ciidanka bilayska sharmaake yaakhi ayaa kubadaasi difaacay ciyaartuna waxa ay maanta maraysaa hal gool iyo eber Hargeysa Stadium waqtigii gabagabada ahaa waa uu dhamaaday 4 daqiiqo ayaa lagu daray imikana gabagaba ayaa ciyaartu ku dhowdahay heego ayaa kubada wata ciyaartooyga Maxamed Saleeman ayaa loo baasay kirix restaurant ayaa kubada wadata kooxda kirix ayaa kubada wadata kirix restaurant ayaa la soo galay Maxamed Saleeman Sharmaake ayaa kubadaasi ka xidhay waana ay baxday defenderka dhinaca bidix ka ciyaaraya ama difaaca ciidanka bilayska galabta waa Sharmaake yaakhi oo isagu caan ku ahaa strikerna ahaa weeraryahanna ahaa laakiin waxa uu door biday tababaruhu inuu difaaca ka ciyaarsiyo Maxamed Saleeman waa uu keenay kubadaasi Maxamed Jufa ayaa soo difaacay Sharmaake ayaa soo laagay Aylo Cabdiqaadir Aylo shafka ayaa ku qabsaday kubada ciyaartooy xoogan weeye kooxda kirix ayuu ka tirsanayay mar labaad ciidanka bilayska ayay kubada ku socotaa daawadayaal daqiiqadii u dambeeyay difaac galay kooxdii ciidanka bilayska waa ay ku socotaa ciyaartu qaybtii dambe ciyaartooyga guuleed Alfis ayaa loo baasay counter attack bay la soo galeen maska ayaa kubada wata ciyaartooyga maska waa uu soo galay wuu soo maray mar labaad Suudi waa uu soo baasay oo mar labaad waa laga qabtay kooxdii ciidanka bilayska ciyaartan in waxa aad moodaaba counter attack Hargeysa Stadium kooxu ay adeegsanayeen inuu ka fiican yahay ciyaarta la soo weerarayo waxaana aad moodaa ciyaartooyda counter attack caanka ku ah waa kooxda kirix restaurant in ay laba jeer qaybtii dambe ciyaarta ay heleen laba chance oo fiican walow ciyaartooygu dhulka ku dhacay isagoo kubada raacdaynaya waana uu dhalin kariyay nasiib darre laakiin markii uu dhulka ku dhacay kubadaasi waxa soo gaaray goolhaya Jarro lambarka 12aad ciidanka bilayska ninka goolka u haya dabadeedna kubadaasi waa ay dhalan weyday ciidanka bilayska oo groupkan ku jira waa groupka koowaad waa group A waxa kula jira dabdamis aan idhaahdo ilaalada xeebaha waxa kale Diana Club Gas Engineering Company iyo kirix restaurant ciyaartiina waa ay dhamaatay guushina waxay raacday daawadayaal kooxda ciidanka bilayska oo heerka koowaad waxayna ku wada jireen groupka koowaad ciyaartuna waa ay ku dhamaatay صعب